bismillaahi raxmaan raxiim kulan wanaagsan qodobada ugu muhiimsan wararka soomaalida iyo caalamkana waxaa ka mida shirqoolka cusub ee guddoomiye mursal u maleegay madaxweyne farmaajo isaafgaradka uu la galay sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud xog ayaa laga helaya nin caddaana oo hay-ad uu maamule ka yahay dhanka amniga iyo cilmi baaristana ka samaysa kol horena laga mamnuucay soomaaliya oo kashifay sababta al-shabaab ugu fududaato weerarada ay ka fuliyaan gudaha magaalada muqdisho sheegashada al-shabaab 250 saac kadib qaraxii isgoyska ex control afgooye ka dhacay iyo shakiga ka dhashay warbixintii niise soo gudbisay waxaa isku soo aadiyey cabdirashiid khaliif xaashi oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda calaamad su'aal ayuu geliyey warbixinta ay dowladda soo bandhigtay madaxweyne farmaajo oo uhuru kenyaata iyo madaxweyne kale qadka teleefoonka kula hadlay arrimo ka baxsan qaraxii dhowaan ka dhacay magaalada muqdishona ay ka arrinsadeen dardaarankii ugu dembeeyey ee ra'iisul wasaare xasan cali qirre uu dhegta ugu sheegay murashaxa madaxweynaha dowladda ay wadata ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor shirarka ka socda dhuusamareeb iyo wararkii ugu dembeeyey doorashada galmudug taliyihii shaqo joojinta lagu sameeyey dhowaan ee ficilka naxariis darrada sameeyey oo dib xilkiisa shaqada xabsiga dhexe ee xamar lagu celiyey madaxtooyada soomaaliya baaritaan iskeed ah ayay bilowday iyadoo sirdoonno caalamiya la kaashanaysa qaraxii ka dhacay isgoyska ex control afgooye iyo sida loo fududeeyey qodobka dibadda waxaa ugu dooroon dhakhtar gobolka ohaayo maraykanka cusbitaal ku yaalla ka howlgala waxaa lagu eedeeyey in uu dilay 25 bukaan ah oo adeeg caafimaad uu u samaynayey faleembooyinka qaar inuu dawo sun ah ugu daray ayaana hadda loo haystaa waana la xihay dhakhtarkaasi u diyaargarooba qodobadaasoo faahfaahsan hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaad nagala socotaan shabakadda wararka maanta taariikhdu waxay ku beegan tahay 31 bisha 12aad ee diseembar 2019 warkii oo dhan guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa kulan albaabada u xiran yahay waxa uu gurigiisa kula yeeshay madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran waxaana looga hadlayay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan sida ugu habboon ee looga guul gaari karo caqabadaha dhanka siyaasadda ee haatan waddanka uu wajahayo waxaa sidoo kale hoggaanka madasha xisbiyada qaran afhayeenka golaha shacabka soomaaliya kala hadleen arrimo ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka iyagoo u gudbiya cabashadooda ku aadan qodobka muddo kororsiga ee ku jira sharcigaas oo aysan raalli ka noqon karin ilo ku dhow kulankaas ayaa wararka maanta waxay u xaqiijiyeen in guddoomiye mursal uu ballan qaaday islamarkaana madaxweynayaashii hore uu u sheegay in meesha laga saarayo qodobkaasi muddo kororsiga wararka ayaa sidoo kale intaasi waxay ku darayaan in la isku raacay si wada jir ah in looga shaqeeyo horumarka dalka gaar ahaan doorashooyinka soo socda 2020-2021 wuxuu kulankan noqonayaa kii ugu horreeyey ee labada dhinac ay yeeshaan wuxuuna muujinayaa inuu xiriir cusub u bilowday madasha xisbiyada qaran iyo guddoonka golaha shacabka shirkan ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa iyagoo muddooyinkii dambe la leeyahay hoggaanka xisbiyada dalka iyo madaxda dowladda federaalka iyo xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ay ku eedeeyeen in ay ka shaqaynayaan muddo kororsi dhanka dowladda federaalka iyo soomaaliya waxaana qawaamuurta mucaaradka u badan ee madaxweyne farmaajo ka soo horjeeda ee la kulmay maxamed mursal ay ka dhignayd saameyn kale iyo siyaasadda oo dhabarjebin in lagu samayn karo farmaajo la doonayo waxaana shakigaas uu hadda gelgelayaa xarunta madaxtooyada gaar ahaan xafiiska madaxweyne farmaajo iyadoona laga yaabo kulan deg deg ah in arrintaas ay yeeshaan guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo madaxweyne farmaajo oo waayahan dambe fiiladooda ay isku xirnayd laakiin shakigan uu sii ballaartay markii habeennimadii xalay kulankaas ay yeesheen mursal iyo labadii madaxweyne ee farmaajo ka horreysay qaybaha hore ayaa daawanaysaan warbaahinta wararka maanta markana magaalada dhuusamareeb waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ka soconayay qabanqaabadii ugu dambeysay ololaha doorashada madaxweynaha iyadoo guddoonka baarlamaanka uu ka soo horreynayo doorashadaasi kulan gaara oo ay yeesheen madaxweynaha murashaxa u ah dowladda federaalka ee galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa waxa uu ra'iisul wasaare xasan cali qirre kulanka uu la qaatay ka soo baxaya warar dheeraada shirkan ayaa ah mid dardaarankii ugu dambeeyey la siiyey qoorqoor taasoo la filayo in uu helay guubaabadii iyo kalsoonidii guusha uu ku soo hoyn lahaa
qaar ka mida dhallinyarada ololaha doorashada qoorqoor u wada waxa ay wararka maanta u sheegeen in ra-iisul wasaare kheyre uu u rajeeyey adeeg iyo inuu la yimaado hogaamin wanaagsan. waxaana axmed cabdi qoorqoor oo ka hor xukunka xukuumadda ka soo shaqeeyey dekedda magaalada muqdisho soona noqday maareeye ku-xigeenkii dekeddaas wakhtigii cabdi jiino calasow uu ahaa maareeyaha dekedda magaalada xamar 2010. waxaana dadka yaqaana qoorqoor ay ku sheegaan inuu yahay nin siyaasadda aan wax badan ka aqoonin balse hilib bisil qofka la siiyo ma cuni waaye dowladda ayaa u bislaysay sida la rajaynayo. sida muuqata kulanka kheyre iyo qoorqoor ayaa ka dhigan in guusha lasii ogaaday oo loo sii cimaamaday murashaxa dowladda ay wadato axmed cabdi qoorqoor kaas oo madaxweynaha galmudug la leeyahay waa uu yahay isaga. inkastoo wax weliba ay isbedeli karaan oo waxani ay siyaasad tahay, haddana axmed qoorqoor ayaa waxa uu yahay madaxweynaha dhaarta ay u dhiman tahay ee galmudug sida siyaasadda dadka aadka u odorasa ay sii ogaadeen. doorashada galmudug ayaana dhaqaalo badan dowladda federaalka ay ku bixisay sida la sheegay, waxaana aan la ogeyn xaalka galmudug iyo xukunka maamulkaas shakhsiyaadka ku soo bixi doona. wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaarayay magaalada dhuusamareebna waxay sheegayaan in kulan gaara uu maanta duhurkii ku dhex maray magaaladaasi sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxa xukuumadda galmudug iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre, waxaana laga hadlayey shaqaaqadii xalay ka dhacday magaaladaasi iyo sidii mar kale aan ciidamada aysan isugu qaldoomin. hogaamiyaha ahlu sunnada gobolada dhexe macalin maxamuud sheekh xasan faarax ayaa diiday inuu la kulmo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre, waxaana la soo tabinaya in ilaa dowladda ay ka garaabayso wixii xalay ka dhacay iyo ciidamada dowladda oo kuwa ahlu sunna xarunta inji ay ku beegsadeen ilaalada jooga uusan la fariisan doonin. waa jugjug meeshaada joog iyo xaalad kale oo ay ahlu sunna abuuraysa sida dadka qaar ay sheegayaan, iyadoona khilaaf hoose uu ka dhex jira macalin maxamuud iyo kheyre arrintii xalay israsaaseynta dhacda awgeed. laakiin sheekh shaakir ayaa qaatay go'aan ah inuu la fadhiisto ra-iisul wasaaraha, wixii ka soo baxayna uu la wadaagay macalin maxamuud kulankaas kheyre uu la yeeshay. qaybaha dhexe ayaa daawanaysaan wararka maanta. warar xasaasiya ayaa nagu soo maqan oo uu ku jiro dhakhtarka dilay 25 bukaanka ee adeega caafimaad uu u fidinayey. bal markanse madaxtooyada soomaaliya ayaa baaritaan ku bilowday warbixin hordhaca oo ay gudbisay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, taasoo tilmaamaysay in xasuuqii shacabka soomaaliyeed loogu geystay 28 bishan Diseembar 2019 uu qorshayntiisa lahaa waddan shisheeye. eela wareedii ku dhow madaxtooyada villa soomaaliya ayaa waxay noo sheegeen in baaritaanka socda sida loo dhammaystiro ay ka dhigan tahay in waddamo sirdoon caalamiya ay kala kaashanayso dowladda. inkastoo dowladda federaalka aysan carabaabin dalka ay la kaashanayso ama waddamada ay doonayso inay gacan ku siiyaan baaritaanka, waxaase dowladda turkiga la rumaysan yahay in sirdoonkooda ay u soo dirayaan magaalada muqdisho xubno ka tirsan si ay u caawiyaan dowladda soomaaliya. wargeys turki ah ayaa saacado ka hor waxa uu daabacay in imaaraadka carabta ay ka dambeeyeen weerarkaas islamarkaana ay abaabulkeeda lahaayeen. arrintan ayaa shaki badan dhalisay, waxaana siyaasiyiinta iyo weliba dadka dowladda mucaarada ay soo gudbiyeen dhaliilo ku aadan sida warbixinta nabad sugidda ay u soo gudbisay. agaasimaha macadka cilmi baarista siyaasadda ee soomaaliya ee heritage cabdirashiid khaliif xaashi ayaa sheegay inuu saluugsan yahay qoraalka shalay ka soo baxay hay-adda nabad sugidda soomaaliya. waxa uu sheegay cabdirashiid xaashi in haddii wax ka jiraan qoraalka niisa ay ahayd inay soo bandhigta macluumaad dhammaystiran si cidda la tuhmayo ama ay ku caddaato loogu jiheeyo eedda iyo weliba tuhumka laga qabo ururka al-shabaab oo xitaa madaxda dowladdu ay ku eedaysay. agaasimaha ayaa sheegay in ka hor tagga qaraxaas ay mas-uuliyadda koowaad ka saarnayd dowladda, islamarkaana ay ahayd haddii fashil amni oo intaas leeg uu dhacay dadka shaqada laga ceeriyo ama iyagu ay iscasilaan, balse taas beddelkeeda dad badan oo khibrad lahayn shaqooyinkii loo dhiibay sida cabdirashiid uu sheegay. dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa goor dambe oo xalay ah waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaas in iyagu ay ka dambeeyeen, taas oo hal bacaal lagu lisay ka dhigaysa warbixinta nabad sugidda iyo xuuraanka ay heshay. afhayeenka ururka al-shabaab cali maxamuud raage cali dheere ayaa maqal laga soo duubay oo muddo 30 daqiiqo ku dhow waxa uu ku sheegtay in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkaas islamarkaana ay ku bartilmaamaysanayeen shaqaale turki ah oo dhisaya sida uu sheegay
wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye iyo weliba xubno ka tirsan dowladda federaalka ciidankeeda uu sheegay in ay ku sugnaayeen isgoyska X Control Afgooye 52 saac kadib ayaana afhayeenka Al-Shabaab Cali Dheere uu maqal laga soo duubay ku sheegay in iyagu ay ka dambeeyeen oo mas'uuliyadda ay dhabarka saaranayaan. shabaabka waxay tacsi u direen dadka shacabka ahaa ee ku leeday qaraxaas wuxuuna ku eedeeyay dowladda federaalka in iyadu ay gaadiidka shacabka ay gabaad ka dhiganaysay maadaama weerarkaas aysan shabaabka la rabin shacabka sida warkay u dhigeen oo ay ku bartilmaamaysanayeen xubno ka tirsan dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya oo markaas ku sugnaa isgoyska X Control Afgooye. waa hagaag madaxa hay'adda cilmi baarista ee Sahan Research Matthew Bryden ayaa sheegay in kheyraad badan oo lagu taageero dowladda Soomaaliya oo aan loo adeegsan halkii loogu talagalay oo ahayd in lagula dagaalamo ururka Al-Shabaab. Bryden oo la hadlayay telefishinka France 24 ee dalka Faransiiska laga leeyahay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya qarashkii loogu talagalay dagaalka Al-Shabaab ay u weecisay khilaafyada gudaha ka jira iyo sidii ay awood ugu muquunin lahayd maamul goboleedyada Soomaaliya. inta badan ciidamadii iyo hay'adihii amniga waxaa loo daadguriyay maamul goboleedyada xulafada la ah dowladda lalama dagaalamin Al-Shabaab. sidaas daraadeed dareenka dowladda kuma sii jeedo ka adkaanta Al-Shabaab oo ka dambeysay qaraxii X Control Afgooye ayuu yiri Matt Bryden. Al-Shabaab waxa ay joogtaa magaalooyinka waaweyn oo ay Muqdisho ku jirto kuwaas oo caadiyan ay dowladda maamusho kuwaas oo sidoo kale dowladda si dadban ay xubno ugu dhexleeyihiin shabaabka. canshuurta ayaa laga qaadaa garsoorka ayay shabaabka fuliyaan. shacabka ayaa u taga deegaanada oo ay cadaalad u raadsadaan meelaha shabaabka ay joogaan ayuu yiri Matt Bryden oo si weyn u bahdilay hanaanka garsoor iyo midda laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya. wuxuuna sheegay in markasta Al-Shabaab ay yihiin kuwa ka sirdoon wanaagsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. wuxuu aad uga argagaxay qaraxii 100 qof ku dhawaad ay ku dhinteen 100 qof dadka ka badan ay ku dhaawacmeen ee sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho ee shicibka ardayda u badnaa lagu xasuuqay. ninkan ayaa madax ka ah hay'adda Sahan Research oo 2018 bishii December 18 ay dowladda Soomaaliya ka mamnuucday inay Soomaaliya ka howlgasho. qodobka dibadda intaanu aadin daawadayaal aan ka hormariyo taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliya General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa shaqada ku soo celiyay taliyihii xabsiga dhexe ee Xamar Maxamed Sheekh Cumar Xirsiile oo bishan bartankeedii shaqada looga joojiyay kadib fal naxariis darro ahaa uu sameeyey taliyaha xabsiga dhexe. xog ay heshay shabakada wararka maanta ayaana xaqiijisay in General Xirsiile 30 bishan oo shalay Isniintii ku beegneed loo geeyay warqad dib shaqada uu ugu soo laabanayo. wararka waxay intaasi ku darayaan in sababta xayiraadda looga qaaday ee shaqo joojintaas hore loo duldhigay General Xirsiile ay ka dambeysay kadib markii uu soo baxay tuhun ah in la iibsaday xubnihii shabaabka ahaa ee shalay galab xabsiga ka baxsaday taasoo loo fududeeyey isla markaana Xirsiile uu ahaa nin aad ugu adag lana dagaalama shakhsiyaadka isku daya inay maxaabiista xabsiga dhexe la baxaan. 18 bishan December ayaa shaqada looga joojiyey General Maxamed Sheekh Cumar Xirsiile kadib maxbuus la geeyay cusbitaal uu kala soo baxay kadibna uu maalmo kadib dhintay bukaanka taas oo dayacaad caafimaad la sheegay in uu wajahay amarka bukaankaas cusbitaalka lagaga soo bixiyena waxa bixiyay General Xirsiile. inkastoo eedaas loo jeediyey uu si kale u dhigay haddana waxaa la leeyahay shaqada ayaa dib lagu soo celiyey oo hadda waxa uu yahay taliyaha xabsiga dhexe ee Xamar. maxkamadeyntii iyo weliba dabagalkii lagu hayay ayaana meeshaas lagu baabi'iyey. markana war kooban ayaan idinla wadaagaynaa intaana soo gabagabayn. xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay ku ansixiyeen miisaaniyadda 2020 ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. ka hor arrintan waxaa laga digayay in ay iman karto barnaamijka shutdown oo hay'adaha dowladda ay saameyn ku yeelan lahayd ka hor bilaabashada sanadka cusub ee caawa 2020 haddii aan la meel marin lahayn maanta. kulanka labada aqal ee baarlamaanka ayaa 188 xildhibaan waxa ay ogolaadeen miisaaniyadda dowladda. waxaa diiday 2 xildhibaan iyadoo uu ka aamusay 1 xildhibaan sida la ogaaday.
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haddii shutdown ay ku dhici lahayd waxaa la rumaysan yahay in shaqaalaha rayidka iyo kuwa xafiisyada dowladda sida gaarka uga shaqeeyo ay mushaar la'aan soo wajihi lahayd haddii aan la meel marin lahayn maanta miisaaniyadda dowladda ee 2020. wasaaradda maaliyadda Soomaaliya waxay ka mahadnaqday xildhibaanada iyo doorka ay qaateen oo lagu meelmariyay miisaaniyadda 2020 maanta oo talaado ahayd maalinta ugu dambaysa sanadka 2019. markana qodobka ugu dambeeyay ee dhanka dibadda ayaan eegaynaa daawadayaal. dhakhtar gobolka Ohio ee dalka Mareykanka cisbitaal ku yaala ka howlgala ayaa lagu eedeeyay xabsigana loo taxaabay kadib inuu ka dambeeyay 25 bukaan ah oo uu dilkooda sabab u ahaa December 2018 sanadkii la soo dhaafay ilaa bishii June 2019 ayaana la sheegay in dhakhtarkan oo ka howlgelayay cisbitaalka Mount Carmel ee magaalada Columbus la sheegay in uu dawooyin suna ugu daray bukaanada. ciidamada ammaanka ayaa hadda baaritaano wada waxaana ninkan haddii ay ku cadaato laga yaabaa in lagu ganaaxo lacag gaaraysa $50,000 Mareykanka iyo sanado xabsi badana. warbixin lagu daabacay telefishinka CNN-ka boggiisa internetka ee website-ka ayaana maanta oo talaado ahayd la soo geliyay warbixintaas waxaana ehelada dadka uu dilay ninkan ay sheegeen in uu u adeegsaday dawooyin kaniiniyaal iyo weliba cirbado sun ah uu ku dilay 25 bukaanka ee adeega caafimaad ee dawada ah uu u fulinayay. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabay.